abaalmarinta dhalinyarada sanadka qaybtan waxaad ku xulanaysaa in tartamuhu uu yahay qof dhalinyaro ah ka qayb qaatay horumarinta bulshada leh hogaamin iyo hal abuur waxqabadkiisuna uu saameyn yeeshay da'diisuna ay ka yar tahay 30 jir abaalmarinta ganacsiga sanadkan waxaad ku xulanaysaa meherad amba goob ganacsi oo muujisay koriin laga helay faa'iido suuqgeyn wanaagsan leh bulshadan wax ku soo celisay abaalmarinta adeega bulshada qaybtan waxa aad ku xulanaysaa inuu tartamuhu yahay urur ama qof bulshada u qabtay adeeg lacag la'aan ah saameynna ku yeeshay isbeddelkooda nololeed iyo deegaan 3 sano ee ugu dambeeyayna shaqeeyay abaalmarinta haweeneyda halabuurka ee sanadka waxaad ku xulanaysaa gabadh amba haweeney la timid fikrad cusub faa'iido leh ganacsiga dumarkana haldoor u ah abaalmarinta halabuurka sanadka qaybtan waxa aad ku xulanaysaa in tartamuhu uu la yimi fikrad cusub laga helay faa'iido bulshadana uu wax ku soo celiyay abaalmarinta waxbarashada sanadkan waxaad qaybtan ku xulanaysaa qof amba xarun waxbarasho oo sameeyay kobac waxbarasho oo aad u harsareeya isla markaana faa'iido kula soo noqday amba u sameeyay bulshada